مسؤولين ka tirsan wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland oo hogaaminayo agaasimaha guud ee wasaaraddaasi mudane Maxamed Cabdi Xergeey oo maanta warbaahinta kula hadlay xarunta guud ee wasaaradda ayaa ka warbixiyay sida Soomaaliland heeganka uga gashay xanuunka coronavirus loo yaqaan ee ka dilaacay dalka Shiinaha ugu horeyntii agaasimaha guud ee wasaaraddaasi mudane Maxamed Cabdi Xergeey ayaa sheegay in wasaaradda caafimaadku ay heegan buuxa ka gashay guud ahaan goobaha laga soo galo Soomaaliland heerarkoodu kala duwan yahay guddi managerial oo wasiirku jeergareynayo guddi technical oo agaasimaha guud jeergareeyo oo shaqeeya oo maalin walba iswareysta waxa kale oo ay wasaaraddu bilowday in xarumo la satalgareeyo gaar ahaan meelaha entry point-ka la yiraahdo in laga soo geliyo madaarka ayaa shaqaale la dhigay sidii horeba la idinku sheegay wajaale ayaa shaqaale la geeyay halka laga soo gelayo iyadoo mahad celinayna immigration-ka oo nala shaqeeyo lawya caddo iyaan shaqaale la geeyay lana tababaray berbera ayaa sidaas oo kale la geeyay barigana meel ka mid ah waxa la geeyay meelaha entry point-da shaqaale tababaran waxaan bilownay inaanu sameeyno wacyigelin oo dadka loo sheego sida imikaba la idin sheegayay waxyaalaha xanuunka laga hortagi karo maadaama xanuunkani aanu ahayn xanuun daawo leh waxa ugu muhiimsan in dadka la baro ka hortaga sidii looga hortagay sida looga hortagay waxyaalo waaweyn oo hawl badan qaadanaysa maaha marka laga tago waxyaalo yar oo personal protection la yiraahdo qofku waxaan sanka ku xidhanaya marka laga tago dhanka kale iyaguna waxa halkaasi hadalka iska daba qaatay mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland waxaana sheegeen sida ay wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ula tacaalayso sidii ay uga hortagi lahayd xanuunka coronavirus loo yaqaan ee ka dilaacay dalka Shiinaha waxa weeye ta ugu horeysa waa wax dhaqan inoo ah oo 5 sannadood aynu tukanayno aanu sameeyno waxa weeye faraha oo si joogto ah gacmaha oo loo dhaqdo si joogto ah si adag oo la isaga kariyo hilbaha gaar ahaan hilibka xoolaha digaaga kalluunka beedka iyo wixii la mid ah tasaddexaad oo ah hadii qof aw dareemo xumad iyo qufac inaanu tagin meelaha dadku ku bulshadu ku badan tahay sababta meelaha waa lagu gudbiyaa waxa qofkaas lagula talinayaa in aanu tagin sariibadaha suuqyada waaweyn dadku ay ka buuxaan iyo hadii Ilaahay ku roon yahay iskuulada oo kale arintu marka waxa weeyaan mar haduu yahay cudur meel kale ka jira arintu waxa weeyaan sidii aynu wadakeena aynu uga joojin lahayn intii karaankeena inagoo kaashanana Ilaahay oo dad muslimiin aynu nahay hadana intii wasaaraddu karaankeeda tahay waa inay ku dadaashaa sidii dadka dibadda ka imanay gaar ahaan ee xanuunka laga yaabo inay sidaan aynu uga hortagi lahayn marka wax weeyaan wadanka meelo badan baa laga soo galaa meelaha laga soo galo ee ugu horeyso airport-ka Cigaal International Airport ay meelo kale ku xigaan ayaa waxaanu gelin shaqaale caafimaad oo tababaran oo dadkii noo soo galayay halka lagu baarayo si hadii ay dad qaba cudurkaasi aynu ogaano oo aynu karantimayno oo aynu iskaga joojino marka waxaan ka bilownay airport-ka Cigaal International Airport waxa kale oo jira meelo kale oo laga soo galo oo ay ka mid tahay Lawya Caddo oo ay ka mid tahay Goroyacawl oo ay ka mid tahay Wajaale oo wajaalo meelaha ugu waaweyn ee dadku aad u kala isku gudbayo inaga iyo Itoobiya halkaana meelaha goobahaas oo dhan shaqaale caafimaad oo tababaran ayaanu geynay waxa kale oo jira dekada Berbera oo yana ahayn goob weyn oo xagga badda ah oo leeyahay soo galo iyana shaqaale caafimaad ayaanu dhignay Axmed Nuur Ciise telefishinka bulsho Hargeysa